ninkii mataqaan gabadhu qabo walaalkeed oo xildhibaan Soomaaliya caanka ah oo qiraya la keenay oo Facebook soo dhigay maxamed xasan idris maxamed garay ayaa soo dhigay waa kana wariba waaba yaqaanaaba waaba ka dhahayba waaba ka wala soo dhigaba wixiba wala soo dhigaba la 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 wixiba wala soo dhiga waa kan ninkii eedayahay waaba la soo helo waaba kanba roogaasay familigiisu waa kana maaragta xildhibaankii soo dhigaba waa kaasa gabadha walaashiiseed ilmihii walaalkii dhalay wixii oo dhan ninkii aba qiraba waaba kan waaba la yaqaanaaba fiir waa kaas gabadha jilbaabka wata waxa dhalay aliyow sheekh cabdi xasan farey walaalkiis ka weyn hooyad waa midda aniga garabkayga taagan waana walaasha ila latay hooyadeed muxuu dhahay waa wala gabadha meesha taagan aniga ila latay ka warraba wuxuu dhahay gabadha jalbaabka wata waxa dhalay aliyow sheekh cabdi xasan farey walaalkiis ka weyn hooyadeed waa midda aniga garabkayga haysato faadumo xasan idris baa leedahay wuri aniga ila latay wuri أنا محمد حسن إدريس بان هيوري عرورتك كلا ورالك أو منطقة فاضل ما حسن إدريس أياد عليه إله بعد كل دارية دبعت أنت على فيس واحد داعي ماشس أبيك دارية دقيست مش واحد داعي دقا سي ددوينو دوغا دقا ددوينو دوغا ددوينو دوغا دقا دوغا ددوينو دوغا ديغا وكاس في وفيميل وعلى كان مركب ما وعاسي شوق مركب يا وعيا ومركب حدا يا وعيا ومركب دغيسو xildhibaanka يا وعيا السلام عليكم اللي بنا ايه على سلام داري شق لايف بان كجيرا كوده اي waxaan arkay sawirkii aan soo dhigtay gabadha walaasha Faadumo Xasan Idris iyo ciyaalkeeda iyo ninka dhalay inuu yahay ninka weyn Xasan Fari AJ family marka arintaasi dadkii ga codsaday inaan ku odahaasho u sharaxdo xoogaalnimadeeda ني هورتا وسفر حياة دار السلام هاد جوغا وحان وصودا نيروبي هاد ايربورت عادي ربا لكن 5 دقيقة aan war ku soo koobaya mar kala toos live soo galaya waan sharaxaya horta marka hore dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay fahmaan horta qof inaan dhibaatayno ujeedadeen horta maahan qof Soomaali ah ka shaqaysto hortiisa u socdo in la dhibaateeyo horta ujeedadeen maahan qabiil dhanna iskuma soo bahaysto hal qof oo iska shaqaysanayo oo cirifka kale adduunyada jooga inay dhibaateeyaan horta iskuma soo bahaysanayaan Soomaali oo dhan Nairobi Xamar meel walba intay live soo galaan kuma marxaati furayaan hadana dadaan aqoon ah horta taas in la fahmo ujeedada meesha ku jirto hooyo Soomaaliyeed in loo wada danqaday sababihii ay soo bandhigtayna ay sababa loo qaateen ay noqdeen way dad Soomaaliyeed waxay la danqadeen waxa ku soo haray waxaweye anaga 3 tuulo hadda qabiilka Yintaarta la yiraahdo degmada Buurakabo ilaa iyo 20 tuulo aan ka deganahay degmada Buurakabo hoos imaadaan saakoon waa deganahay idaala saddexda midna waxay ka tirsan yihiin gobolka Baay ka tirsan yihiin meel waxay ka tirsan tahay jubbada hoose jubbada dhaxay ka tirsan tahay dadka
tuulada hadda xasan oo laga hadlayo meesha samakaayada lagu leeyahay ID-gayga aniga sharcigayga Holland samakaaya igu qoran aniga waa meesha aan ka nimid horta 91 waqtiga uu sheegayo waa waqti horta aniga aan soo qaxay oo aan soo wada qaxnay meesha aan ka soo qaxnay xamar soo qaxnay waxa ku soo haray hooyadiisa walaalkiisa mid waxa soo hooyadiisa waxay dhashay 5 wiil ay dhashay 2 wayba dhinteen ba ma asaga ka horay dhinteen saddex ku yahay gabar ayaa hadda nool gabadha Malayka lahaa hooyadii gabadh waa soo joogan xaafadii silgay degan yahay hooyadii waxay la joogtaa gabadheedii la joogtaa xaafadii silgay degan tahay walaalkiisa mid 4 sano shabaab u xiran yahay oo si qaldan ayaa loo soo xiray 4 sano shabaab u xiran yahay nima waxay ku eedeen siyaasadda inuu ku jiro siyaasadda kama shaqeyn jiray taa walaalkiisa nool igeeri lagu mahay midka kale oo reerka ugu weyn walaashay aniga iga yar oo da'da igu xigto igu hooseysa oo mataan ah ayaa caruur u dhashay gabadhaas caruurta mid kamid ah waxay horta intaas oo dhan hooyadiisa oo daba socotay dadka tilmaamaya asaga la deganaa waxaas oo dhan tuu ku qanci waayay marka oo ku qanci waayo waxa jiro ninkan laba shay u furan oo noloshan u fududeyn karo warka nuxurkiisa la rabaa in loo gudbo moogtahay laba shay mid wuxuu Joyce u leeyahay inuu dhaho anoo Xasan Faray ah hooyaday Faadimo ah intaar ahaa waa diiday qabiilkaas waa ka baxay hooyadayna mar rabiina arko waana diiday xoraan u ahay shaqana isku maleeyeen imana sheegan karto banaankaas ay ka maraysaa waa war la fahmi karo ma ahan DNA uu qaadaya shuruud 100 kun haleegu xiro iyo sidaas meelahaas darbiyada madax lagu garaacayo iska dhaafaya DNA-ga banaanka Soomaali Maxamed marxaati ka noqonaysa uu tagaya DNA-giis haduu ka bari noqdo banaanka ka noqdo maamadaas dawiilkeeda waa ka maqan yahay meel kale Allah uga sahlo banaanka laga maray Soomaalina way u qaadanaysaa ninka in laga qaldanaa waa loo garaabaya labadaas waxaan ahayn horta ninka uma furno waaba dhunta ka baxay internet waa dhunta دوما لاسك هكتي بس مرك داير ودا ايربورك ايوه حلو محمد درس ايوه ما صدق انت سار بينا حقيق شعبك وحقيقس انا بارست waa wadayna waxa lagu yiri hal bil dhuumo dadka waa ku iloobayaan qof normal iloobi kara anaga ma iloobin qof lama iloobi karo asaga dadka diidi kara waa laga samri karaa anaga ma iloobina waa daba joogina waa saddex xildhibaan asafar salaam marka Nairobi soo wacay hello Maxamed Idris Faadimo Dacari soo kurisay Faadimo Dacari gabar leeyahay oo sacada oo ganacsada ah ayaa soo kurisay hello Maxamed Gani oo qortay suuq markiis isagoo yar waa la soo kori Faadimo Dacari soo kurisay weligiis ma dhihib hooyis ma inkir ma inkiraasi ay ka kale waaya waa ku soo laabanaya qodobkaas waaya qodobkaas waa u soo laabanayna waxaan galayaa maanta ooyin baa arkay waa la ooyaya maalmahan shalay iyo maanta bon xamaro ooyinta ka dhawaato دار على صاو كم لا يهبل بنضح ما أنتوا إجد عود إلكي أنتوا كبطي إلكي أنتوا كبطي بون حمرو سأقول بهدلايا أنو يغنور كنا إلكي أنت كبطي أو كبطي أو يي أو تجي عارك سناك داره ودعوه وسنجري ودعوه دار على صاو أي كان يقول لا باشا